aynu dhahno maanta lamaantaada ama lamaankaaga ayaa kaa carooday ama xanaaqay, mana rabaan inay kula hadlaan. Fariin ayaad u dirtay, ma soo jawaabayaan. Waad wacday, ma qabanayaan. Kulan ayaad ka codsatay, kuma jawaabayaan. Haa, waa sidaas. Waxay u badan tahay inay dhibsadeen arrimo xasaasi ah. Macquul inay aad uga xumaadeen ficil yar oo adaygu samaysay. Xitaa waxaa dhici karta inay ugu yaraan masiirsan yihiin. Dareenka caradu waa mid ka mid ah waxyaabaha lagu yaqaano qofka dhabta wax u jecel. Waxa ayna inta badan u badan tahay qofka aan kaa xanaaqayn ama aan kaa masayraynin inuuna wax jecela ku hayn. Walow dadka qaar ay u dhasheen dareenkan, si walbo ay tahay, qofka wax jecel wuu suuroodaa, wuuna xanaaqaa. Markaas sidee ku raali gelinaysaa qof aad ugu beddelaysaa farxad iyo dhoolla caddayn? Cajiib ahaantii, dumarka iyo ragga farxad gelintu way ku kala duwan yihiin. Waxaana jira ficilo kala duwanaansho samayn doona. Aynu kala qaadano laba qayb. Raggu maxaa lagu farxad gelin karaa marka ay tahay xanaaq ama masayr? Ha isdaalin, 3 qodob oo kaliya ayaan ku siin doonaa. Qodobka koowaad, isagu ammaan. Waad ogtahay dadka oo dhan inay iska jecel yihiin ammaanta, oo maanta oo dhan in la ammaano way iska rabaan. Raggu ammaan badan laakiin uma baahna, buunbuunin badanna uma baahna. Kaliya waxaa ku filan 3 eray oo macaan oo aad dhahdo, like xabiibi, dartaa ayaan wax walba u sameeyaa. Waan ku baryaa, ha i dhaawicin, mana awoodo midaas. Macaani, wax kasta ayaad ii tahay. Xanaaqaaga anigaa kuugu rabo. Maxaa yeelay aad ayaad igula qurux badan tahay, waadna i soo jiidanaysaa. Markii aad ii xanaaqdo, waxaan dareemaa inaad aad iigu xiisayso. Tan way farxad gelin doontaa oo si fudud ayaad qalbiyadooda u dareensiinaysaa in xanaaqa u beddelmo farxad. Ta kale waxaa waaye, waan ku jeclahay boqorkaygii. Adiga adduunkayga oo dhan ayaa tahay, waana sababta aanan kaaga maarmin. Xabiibi, qalad kastoo dhacay, jacaylkeena dartiis u ilaaw. Aad ayaan kuu jeclahay, waadna ogtahay midaas. Mana eegi karo xanaaqaaga, qalbiga ayaana ka murugoonayaa. Waan ku baryaa ii dhoolla caddee hal mar. Intaan qodob midaad doonto ka isticmaal, xaqiiqatan aad bay kugu caawin doonaan. Micnahuna ma ahan haddii aadan hadeerta u baahnayn ama aanan laga xanaaqsanayn. Ogow wandhay ayaad u baahan doontaa, way ku anfici doonaan. Soomaalidu waxay dhahdaa wiil iyo gabar dagaalka ma dhammaado, gaar ahaan xilliyada haasawaha. Isla wiilasha haddii aad aragto inuu xanaaqsan yahay, ha isku dhedhejin. Taas waxay kicinaysaa buuq keliya. Beddelkeed isticmaal ereyadii sare, kadibna shibka dheh, kana warsug. Iyaga ayaa isfurfuri doona oo ku hadli doona. Markay isfurfuraan oo ay sheegaan dhibaatada, deetana ku dheh, wallaahi waan ku jeclahay, umana sameynayo arrimahaas si aan kaaga xanaajiyo. Kaliya waxaan rabay inaan farxad kuugu abuuro, ee hadda ma ii cafinaysaa? Waad ogtahay inaan saacad kaa ahaan karin. Haddii aad rabto inaad naftayda ciqaabto, waxaad doonto igu ciqaab, laakiin ha ii xanaaqsanaan, hana iiga aamusin. Wiilasha, qodobka ugu dambeeya, inta badan fariimo ka kooban u dir inta uu jiro xanaaqaas, laakiin wicitaan iyo cod dheer iyo dacwo iyo arrimo kale ha gelin. Si aad qof u farxad gelido, dhib kale ha sii kicin. Tusaale, adiga iska soo qaad, markaad xanaaqsan tahay, ma jeceshahay in lagu soo wacwaco maanta oo dhan, lagu raaligeliyo, fariimo badanna lagu soo diro? Waxyaabahaas buuq leh kugu sii furayaan, laakiin waqti sii, madaxana ha u soo dego, kadibna iyaga ayaaba jaanis ku siin doona. Dhanka gabdhaha, warka oo kooban. Markastoo ay xanaaqdo, chocolate u geey, ama hadiyado kale ama kedis iska qurxoon u geey. Way iska farxaysaa. Yacni maaha wax aad u adag gabar qalbigeeda in la farxad geliyo. Gabar way qalbi jilicsan tahay. Wax yaroo micno lahayn aad siiso ay qalbigeeda kuugu furaysaa. Ereyo qabooban oo macaanna ku dheh. Midda kale, wicitaankana waa muhiim marka ay gabar tahay. Haddii aadan wicin, fariinna aadan dirin, meesha caqabad kale ayaa kaaga imaanayso oo xisaab kale ayay isku dhufanaysaa. Wac, fariimana u dir, laakiin ha ku dheeraan. Wabilaahi tawfiiq. Qodobka labaad waa isla gabdhahe. Gabadha ka jooji ficilada keenay inay xanaaqdo ama maseerto. Raggu tan inay fahmaan ayay u baahan tahay. Waxaad arkaysaa wiil 3 gabdhood ku dul wada hashii uu sida dhabta u jeclaa. Markay ka xanaaqdo ama ka aamusto ayuu stress iyo walwal isgelinayaa.
markay u soo jeesatana meesha ayuu ka bilaabayaa, taana looma baahnaa. Haddii ay dhacdo inaad ku guulaysato inaad xaliso qalbigeeda, micnaheedu waa inaad joojiso dhammaan wixii keenay aad go'aan ka qaadato arrimahaas dhan, dibna aadan ugu laaban. Isku day inaad fahanto gabadhaas qalbigeeda, iskuna day inaad fahanto dareenkeeda. Muuqaalka intaas ayaan ku joojiyey, part 2 ayaan kasoo samayn doonaa. Waana idinkaga mahadcelinayaa sida wacan aad ila socotaan. Fadlan noogu caawi like-taada si saaxiibo badan u helno. Naguna soo biir haddii aad nagu cusub tahay. Haddii aad horey nooga mid ahaydna aad ayaan kuugu mahadcelinaynaa mar kale iyo mar kaleba. Until we meet, bye bye.